بسم الله الرحمن الرحيم iga gudoomo gebigiin salaan gobaad intiina aan garanayn eenan daawano muuqaalkii koobaad ee barnaamijkan cusub ee aan ugu magac daray maalmaal waan iskiin barayaa anigu waa mudane daahir axmed faarax halgamaan reer Jabuutiya isla markaana daneeya cilmi baarka aadamaha iyo bulshada waxaan jecelahay maanta in muuqaalkan labaad inaan maxay ahaydanay nigu soo tabiyo qayaxaadii in ereye kale oo kamid ah kuwii asaasiga ahaa een toddobaadkii hore inii taabtay ereyada oo dhagaheena ku badan waxa aan ku soo qaadanaynaa maanta labada erey ee kala ah dawlad iyo gumaysi ereyga dawlad waxa lagu qayaxi karaa bulsho leh maamul shaqaynaya bulshooyinka kalena ay sida u ogsoon yihiin intan dambe waxa taa lagu daraa inay ummadaha midoobay ama qaramada midoobay si rasmi ah dawladda u aqoonsanaadaan marka halka waxa inooga soo ifaya inay dawlad iyo bulsho ayna kala maarmin bulsho ayaa runtii dawlad samaysata inta aan ku sii socon bulsho ayaan xasuusinayaa sidii muuqaalkii hore aan ku qayaxnay inay tahay dadweyne amba ummad habaysan taasoo ka dhigan ummad wadaagta dhaqan dul dhismo sooyaal iyo rabitaan aayo dhismaha haddana waxay ka ilaa dhismo waxay ka dhigan tahay hab kolka marka la leeyahay bulsho way dhisan tahay waxay ka dhigan tahay bulshadaasi waxay leedahay hab ay dadka ka kooban bulshadaasi isku raacaan waxay kale leedahay hab ay ula soo baxdo dhaqaalaha ay ku nooshahay waa dhismo dhaqaale waxay kale leedahay hab ay ku dejisato maamul taasoo ah dhismaha siyaasadeed macna labaad ayay erey dawlad u leeyahay oo ka soo fircama macnaha guud kaasoo ah inuu ereygu tilmaamo dhammaan hay'adaha maamulka dawliga hay'adaha oo ku aroora saddexda awoodood ay dawladda ka kooban tahay oo kala ah awoodda fulinta awoodda xeerdejinta iyo awoodda gargoynta tusaalo markuu qof leeyahay dawladdan u shaqeeyaa waxay ka dhigan tahay waxaan ka shaqeeyaa wasaarad amba laan kale oo ka mid ah maamulka dawliga haddaan imanka u dhaafo ereyga gumaysi ereygaasi waxaa lagu qayaxaa inuu yahay ficilka dawlad amaba koox qabsatay dal ay lahayn deeftiisiina hantiday dadkiisiina ku muquunisay xoog haddii ay tahay dhaqan ahaan haddii ay tahay dhaqaale ahaan iyo haddii ay tahay siyaasad dawlad amba koox dal ay lahayn qabsatay deeftiisii hantiday bulshadii halkaa ku noolaydna ku muquunisay xoog hadday tahay dhinac dhaqaale hadday tahay dhinac dhaqan iyo haddii ay tahay dhinac siyaasadeedba qayaxaadda ereyga gumaysi waa kaas weeye haddaba marka sidaa ereygaa loo qayaxo ereygaasi ma ka turjumi karaa xaaladda uu dalka Jabuuti oo dalkeena ah dalka aan ka soo jeeda ah oo ku jiro ma ka turjumi karaa inta badan anigu markaan ka hadlayo xaaladda uu dalka Jabuuti taliskani haystay Ismaaciil Cumar Geelle uu galiyay waxaan idhaahaa gumaysi ayaan ku jiraa runtii ereygaasi waa ka turjumaya marka laga reebo midda ah inuu Ismaaciil Cumar iyo afarta qaraabadiisa ama ilma adeeradiisa ay dad reer Jabuuti yihiin ay ajaanib ayna ahayn marka laga reebo sifooyinkii kale ee guumaysiguba way ka jiraan dalkeena xoog ba ummadii lagu haystaa deefteedii ayaa la gaaraystay oo la hantiyay waxaan wax yar aanan ahayn maxay ahaydeenay ummadiina waa la muquuniyay xoog baa lagu muquuniyay hadday tahay dhinac dhaqan oo dhaqan guur baan ku jirnaa waan arkaynaa haddii ay tahay dhinac dhaqaale oo Jabuuti dhaqaale madax bannaan ma jiro haddaad doonayso inaad maxaydan meherad aad samaysato amba waxaad samaysato oo una taliska ogolayn sharcigu waa halkiisa iyadoo sharciga waafaqsan hadduuna taliska ogolayn kuma suura galayso dhaqaalihii dalkana cidda ay gacanta ugu jirto waxa weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle iyo inta ka garab dhow iyo haddii ay tahayba dhinac siyaasadeed siyaasadii awoodii siyaasadda oo dhan amba maamulkii dawliga oo dhanna gacanta ayuu ku soo urursaday Ismaaciil Cumar Geelle haddeedna laygama qaadi kara ayuu leeyahay 50 sanadood iyo isagii adeerkii isku dhiibeen taladii dalka inuu ummadii u soo celiyana ma rabo ilaa inta ay maxay ahaydeen nool yahay inuu sii fadhiyo rabaa marka dambana cid isagu qaraabadiisa ku wareejiyo ayuu rabaa waa gumaysi
محلية وي قميسي لوكال ويا قميسي محلية وي قميسي سيديسية ويا أنا قال نلا هالليا أو هالجماعة أو إسبدل ودقدقاقة يدور يا صدن سندات وحسعد إسماعيل عمر وإيري ودستور كقري بشي نجاتك تي أكتوبر لبده يكون يشان يلباتن كلي هي لباتن كيدي بشي أكتوبر اللي هي لباتن كيدي لبده يكون يشان يلباتن كل دستور كقري إن أنا جايين إن المرشح كان نقضه أو محايدنا الدور الشم دحوين مرشح وكان نقضه بالكني مجيدد بسعد إيري إن دستور كيبنا كقرتي سقى دستور كقدري قضب أنيجا شخصية إدارة إن لبدا محايدنا مسؤولية صاحب بداية آدم محمد عبدو يخضر عبدي إبراهيم يجنا وحال ليدي مجيدين ناس سعودين أو باسبورو دي أيا لقى هيستا إن حسبي سياسة كمجري كره جيبوتي ولا جماعة شرعية هدي ونتاليسكا تاجر سنين وحسابته عن النقول أن هاي الدعوة وين هردن شرعي ولا جولا النقطة قارنا وبلودي ولكن سدا أي واحد كاستبا كعنت إسماعيل عمر جيلي يأفرتها المادير هذه والروسيين أو مدينة حوق لقوم مقولنا يا ديفتدينا لهانتي أيه جينا كعنت لقو خبصة ولا ليه هاي نجمع حروبي كرتين كل كابو جوميسي وارون maaha maxaydanay wax laga been sheegayo waa sida ay xaqiiqadu tahay weey inta ayaan ku soo koobaya maanta waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu